إلهي كو حرنو انت كالي مركات سميسي سدح ذا كالي مركات سميسي إلهي كو حرنو تصبيح ذا بادي مالنتي ugu yaraan 5,000 oo tasbiix da samee sidoo kale marka aan ku ira aad isla joogtid aad maskaxiyan degan tahay marka mentally aad joogtid oo aadan ka fikireen meeshan wax ma yaalaan negative inta iska dhaaftid agagaarkaada positive aad ka dhigtid oo aad wanaag badan agagaarkaada ka aragtid kadib number 2 waa inaad markaasi xirfad barataa xirfad raadi maanta haddii aad soo barato jaamacad ka soo baxday ama dugsi sare aad soo qaadatay ama aad soo barato nooc doonto ha noqotay waxaad soo baratay waa cilmi guud cilmi weeyaan wuu ku anfacayaa laakiin maanta xirfadaad u baahan tahay maanta shaqada inaad shaqo heshida daarabtid ku fikir shaqo aan physical ahayn oo aniga gurigeyga aan qaban karo jooga aan qaban karo xageen ka helaya famisa shaqo aniga oo gurigeyga jooga aan qaban karo xageen ka helaya waa inaad maskaxda ka shaqaysiisid buugi qalin qaado qor right adduunka wax kasta maanta waxa lagu xaliyaa qoraal mar kasta oo ay kugu soo dhacdo ina shaqo la'aan tahay qof kasta oo maanta muuqaalkan daawado oo shaqo la'aan ah bal qor xirfad ma haysataa imisa xirfadood ayaad ku shaqeyn kartaa aad baran kartaa maanta qor 5 xirfadood 2 xirfadood 1 xirfad kadibna ku dhaqaaq inaad barato xirfadaas fahmaysaa number 1 maxaa idin dhawaadin ku celinaya dadka gadaal iga soo biir number 1 waa inaad maskaxiyan iska dhaadhicisid inaad shaqo helaysid oo agtaada shaqada taalo iska dhaaf negative ka meeshan shaqo ma taalo meeshan dadka waa lagu dilaa meeshan bilaa waxa soo dhan negative ka iska dhaaf positive u bedelo dadaalkeedana la imo famisa laba waxaan ku yiri xirfad baro xirfad raadi ha isku halaynin cilmiga aad soo baratay kale hadhiino ani neerisan soo bartay neerisan ku shaqeynaya hadhiin ani waxaan soo bartay maamulka imaareenta ku shaqeynaya uma baahnid ku caawinaysaa waa cilmi guud laakiin waxaad u baahan tahay specially ama specific xirfad inaad baratid u baahan tahay famisa walibana xirfad online aad u baahan tahay qof dhalinyaro ayaa tahay dhalinyarada maanta soo barbaaray internet waad haysataan telefoon waad haysataan qof aanan gelin TikTok ma jiro qof aanan gelin Facebook ma jiro qof aanan gelin YouTube ma jiro qof aanan online ka gelin ma jiro xirfadaha baro isweydii xirfadad ku fiican tahay ma waxaad ku fiican tahay inaad wax sawirtid ma waxaad ku fiican tahay inaad wax akhrisid qaar baa ku fiican wax qoraan kale qoraan haddaad ku fiican tahay website samayso blogger noqo blog ku samayso malaayiin lacag ka sameyn kartaa famisa haddaad editing iyo farsamada ku fiican tahay video editing baro waa xirfad la barto baro maalmo yar ay kugu qaadanaysaa bilooyin xirfadahana idin sheegay 3 bilood ka badan xirfad kugu qaadanaysa ma jirto futurelearning.com markaad gashid malaayiin xirfada ku jirto Udemy markaad gashid malaayiin xirfada ku jirto Skillshare markaad gashid malaayiin xirfada ku jirto akademiyadaas online-ka waxa loo diyaariyay adiga oo kale qof telefoonka gacanta haysto oo xirfad raba inuu barto shaqo abuur ay u noqoto ka baxa shaqo la'aanta ayaa loo diyaariyay ma fahmaysaa xirfad isku day inaad xirfad raadisid haddaad ku fiican tahay waxa gudbin baraha bulshada furo Facebook page furo haddii Facebook page uu kugu adkaado oo aadan account wax u haysanin waxaad ku shaqaysataa maxay affiliate markaad ku shaqayso kambaniyasha productigooda la promote gare fahmaysaa team ku bir waa muhiim shaqo la'aanta lagu sheegaya adiga ayaa isdhiga shaqo la'aan ee cidna kuma dhigin maanta dhalinyarada shaqo la'aanta ah waa nasiib daro adduunka maanta waa available wax kasta waa la helayaa shaqo la'aan maanta maba dhici karto haddaad maanta shaqo la'aan tahay maskaxdaada yar ayaa shaqo la'aan ku dhigtay ka shaqaysii maskaxdaada buug qaado waxaad tiraahdaa qor qalin qaado maxaan shaqo la'aan u ahay waa maxay waxay hortaagan waa maxay mushkiladayda waa maxay waxba bilaabi la'ahay ma internet ma haysti telefoon ma haysti ya waad haystaa of course qof kasta maanta noola dhalinyaro uu haystaa fursadaasi dan fursadaas faa'iido ku ah shaqo la'aan noqon karaa ma dhici karto ma oday gabooba tahay dhahala may ma islaan gabooda tahay dhahala may wiil yar dhalinyaro tahay gabar yar dhalinyaro tahay way marka maxaad gadaal isugu dhigaysaa ee aad mushkulada aan jirin iyo balaayo aan jirin iyo shaqo la'aan aan jirin iyo baaha aan jirin maxaa isugu saadinaysaa gacantaada ku jirtaa mobile baad haysataa internet baad haysataa gacantaada ku jirtaa saddexdaas qodob ee maanta idin la wadaagay saddexdaas qodob qodobka afraad waxa weeyaan inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada saaratid tasbiixdana aad badsatid
dhaqaalaha wuxuu ku jiraa markaad ilaahay u dhawaatid famisa tasbiixda waa inaad badsataan maalintii ugu yaraan 5,000 oo warda oo tasbiix hadaa samaysid shaqo waad helaysaa dhaqaale waad helaysaa ganacsigu ku badanaya halka aad joogto ayaad ku bara maasha Allah barwaaqo ilaahay kugu siinaya dad badan ayaa tijaabiya challenge-gaasi sameeyay oo kasoo baxay oo maanta leh weligay kuma fikirayna dhaqaalaha intaan laga inuu isoo galay weligay kuma fikirayna noloshayda inay saan isu bedelayso famisa waa qodobka afraad ilaahay ku xirno inta kale markaad samaysid saddexda kale markaad samaysid ilaahay ku xirno tasbiixda badi maalintii ugu yaraan 5,000 oo tasbiixda same oo ugu horeysa salliga rasuulkeena cali salaatu wasalaam 1,000 jeer hadii maalinta aad salliga tiraahdid hubaal waaye shaqada aad banaanka ka raadinayso gudahaada ka iimaanaysa maalintii hadii aad tiraahdid kun subhanallah magac ilaahay ee weyn hubaal waaye lacagta iyo meeshaad u raadinayso inay hoostaada iimaanayso famisa 5 kunaan maalintii maalin kasta sameeya everyday 24 saac gudahooda mararka qaar hadii maalintii aan dhameyn kari waa habeenkii aan dhameeya salliga nabiga oo kuna subhanallah oo kuna allahu akbar oo kuna astaghfirullah oo kuna alxamdulillah oo kuna war maanta iga qor hadii maalin kasta 5 kun aad sameyso shaqo ma raadinaysid you don't need inaad meel badan shaqo ka raadiso isteebiyada maanta aan ku siina aad qaadatid xirfada ugu horeysa ee aad barato ayuu ilaahay kuu barakeynaya xirfada ugu horeysa aad barato ayuu ilaahay wuxuu kaaga dhigaya mid cirka ilaahay kaaga soo rido fursad ah fursadaasi ayuu dhaqaale wuxuu ka soo galaya weliga aad ku riyoona ayuu ka soo galaya why because nimcooyinka ilaahay uu ku siiyay oo aad kaga faa'iideysatay marka laga soo tago faralka waajib ayuu kugu yahay maadaama aad ashahaadatay oo shahadu laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah aad qaadato oo aad qof islaam ah waajibku ku saaran yahay laakiin sunnooyinka ilaahay kugu irsaaqaya famisa sunnooyinka marka aad ku dadaashid salaata leelka aad dukatid markay dadka hurdaan aad kacdido aad dukatid ilaahay shaqo la'aan ah rabbi asa wajalla shaqo la'aan ah aad duceysatid ilaahay shaqo ku siinaya maalin kastana aad rukumatid 5 kun waxaad ku dari kartid adeeg ku taala laakiin 5 challenge ma sameyn kartaa maalin kasta 5,000 oo tasbiix maalin kasta ma sameyn kartaa meel kale oo raadinaysa dhaqaalo famisa bal tijaabi maanta laga bilaabo waay aan 4 kun u dhihin waay aan 3 kun u dhihin waxaan 4 kun u dhihin 3 kun ana soo tijaabiyay ardaydayda markuu ugu horeyso qofka ay ku adag tahay tasbiixda waxaan u diraa 300 inay sameeyaan maalintii 300 salliga wuu dheer yahay dhahaan dhimana ku qaado waqti 300 salliga 300 allahu akbar 300 subhanallah 300 alxamdulillah 300 astaghfirullah saddexdaas markay la qabsadaan markaas ayaan shan u diraa 500 coach baan u ahay ardayda aan siiyo 500 way ku faa'iideen maanta arday badan ku faa'iiday maanta oo ka reeysta shaqooyinkii iyo cabaadkii iyo xagan wax ka raadinaa xirfado fiican sameeysta ma fahmaysaa shanta marka ay soo bixiyaan 500 markay maalintii sameeyaan baan iraahdaa hadda waa 5 kun maalinta waa inaad kun ka dhigtaa kun waa inaad ka dhigtaa because dadka qaar waxay ku sameeyaan tusbax dadka qaar waxay ku sameeyaan gacantooda dadka qaar waxay ku sameeyaan ani laakiin kana ii fudud oo waxaan isticmaali jiray mid yar oo farta la geliyo oo tusbax amal ah laakiin kana iga sii fudud sababtoo ah hadii bas aan raacayo hadii tareen aan raacayo hadii aan maxay ahaday shaqada mararka qaar markaan joogo anoo shaqeynayo ayaan farta saa u gashtay maanta dhan leh subhanallah 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 famisa albaabada ilaahay ku furay okay shaqo la'aan ma jirto laakiin waxa ku haysto garasho la'aan shaqo la'aan lacag la'aan ma jirto laakiin waxa ku haysto garasho la'aan daawade dhalinyaradeena waxa haysto garasho la'aan laakiin shaqo la'aan ma jirto maanta wadankii waxa la leeyahay shaqo la'aan jirto dhibaato jirto ma jirto shaqo la'aan garasho la'aan jirto iyaga isgaran la maanta laga bilaabo waxaan rabaa muuqaalkan hadda daawato inaad isgaratid oo isgarawsatid inay shaqo la'aanta adiga tahay laakiin banaankaada ee gudahaada ay tahay shaqo la'aanta waa adiga laakiin shaqo la'aanta banaanka kaaga ma imaanin ee adiga gudahaada sax shaqo la'aanta waad ka bixisay babisa shaqo la'aanta waan ka bixinaa laakiin waa inaan anaga isa saxnaa okay number 1 maxaan ku iri ko number 1 waxaan iri waxa lagaga baahay maskaxiyan inaad aamintid in shaqada banaanka aysan kaaga imaanin laakiin adiga gudahaada ay tahay maskaxdaada mentalkaada inaad saxdid oo aad negative-ka iska ilaalisid oo aad positive ku bedeshid wanaag arag inaad ku bedeshid oo shaqo waan waay shaqo agteyda ma taalo meeshan shaqo ma taalo waan tahriib waxaasna aad dhaafto tiraad shaqo waan helaya
buug iyo qalin qaadanaya maxaa ani haysto waxa ku haysto inaad xalisid oo aad qortid oo buug iyo qalin aad qaadatid oo maskaxiyan ahaan aad iska dhaadhicisid inaad shaqo helaysid oo ay kugu xiran tahay shaqada adiga mentally emotionally inaad physically inaad adiga iska dhaadhicisid negative-ka iska saartid oo aad tiraahdo maanta laga bilaabo shaqaan abuuranaya maanta laga bilaabo shaqaan samaysanaya maanta laga bilaabo wax badan soo saaraya maanta laga bilaabo dhaqaalaan sameynaya maanta laga bilaabo lacag badan sameynaya maskaxiyan ayaad isu baraysaa waxa la dhaho maxay ahayd caado waxa sameynaysaa positive ah inaad shaqo helaysid oo adiga ay kugu xiran tahay shaqada laakiin aysan ku xirneen reer hebel iyo shaqo la diiday iyo wadanka shaqo la'aan ah qabyaalada jirto burbura jiro waxaas oo dhan been way banaankaada way laakiin gudahaada adiga gudahaada rabnaa marka hore inay shaqada ka timaado number 1 okay number 2 waxaan ku iri waa inaad xirfad barataa haddaadan xirfad baran ka bixi maysid markaa caqabadii ma xallin kartid xirfad waa inaad barataa waliba xirfad maanta teknolojiyada ah baro online aad wax kaga qabsan kartid baro okay waan ku soo celceliyaa xirfad baro raadi xirfad xirfada okay ani maxaan ku fiicanahay maxaa ani anfacay sidee baan uga baxay shaqo la'aanta fursadahan iyo waxyaala meesha aad wax ka raadinaysan wax ma ka jiraan agtaada iyo wax kasta yaalaan inaa ay ku jiraan gudahaada ku jiraan maskaxdaada wax kasta ku jiraan jirkaada ku jiraan laakiin aad banaanka ka raadinaysaa inaad qaxdid inaad wadan kale aadid in cid kale ku keento inuu hebel ku keeno inuu madaxweyne hebel shaqo ku siiyo that's nonsense banaanka waxa ka raadin gudahaada ku jiraan bamisa dhalinyarada waa inaad runta ogaataan bamisa lambar 3 maxaan ku yiri waa inaad la taliyo yeelata coach waa inaad leedahay coachka wuxuu ka caawinayaa inuu ku saxo marka dugsiga quraanka dhiganaysa macallin u baahneed macallinka ku caawinay marka iskoolka aadaysay xiisada sayniska macallin ku caawinay sidoo kale nolosha macallin bay u baahan tahay waa inaad coach heshaa consultant waa inaad heshaa road giver waa inaad heshaa hadaad helin waa iska dabalaabanaysa coachka bilaashka ma aha lacaga lagu bixiyaa money lagu bixiyaa waa inaad u qoondaysaa tiraahdaa 2-3 bilood oo coach aan u baahanahay ama 2 bilood oo coach aan u baahanahay imisa ay anfacayso xirfadaad baranaysaa waa lagu hagayaa famisa waa inaad coach leedahay lambarka 4 haddii aad rabtid inaad gaajada iyo shaqo la'aanta iyo dhibaatada laga baxo waa inaad tasbiixda badisaa tasbiixda wardiga waa inaad badisaa 5,000 oo tasbiix maalin kasta waa inaad samaysaa dhaqaalihi asaga soo hoobanay asaa iimaanay shaqada way iimaanaysa dadan waliga ku soo wicina ku soo wacaayo oo shaqo ku siinay meel aad u dirsatay maxay request letter u dirsatay ama warqad codsi aad u dirsatay ayaa shaqo kaaga soo dhacaysa oo waliga aadan filanin laakiin inaad la timaadida laga raba 5,000 oo maxay 5,000 oo wardi maalinta inaad la timaadid sida qaybta hore baan ku faray 5taasi qodob hadaa sameysaan daawadayaal shaqo la'aan waan ka baxaynaa dhibaatada maanta shaqo la'aanta jirta waa waraya shaqo hadii maanta qof uu shaqo meel soo galiyo meeqa qof 1,000 qof ayaa ku xaadirayso laakiin hadii maanta aan ku iraahdo 5,000 oo wardiga ah ama wardi aad sameyso ayaa shaqo ku helaysaa hal qof oo qabanay malaha sideedana meesha dadka ay u bataan lama aade meesha dadka ay ku yarihiin la aada waxa dadka ku adag meesha dadka u fudud lama aade waxa dadka ku adag la aada nafta waxa ay nacab tahay ayaa la aada shaqo la'aanta waa laga baxaya war ma isku raacnay dhalinyaro aniga runta idin sheega waxa la adihiin dad runta idin sheego waxa la adihiin dad aad ku daysataan aniga waxaan idin leeyahay steebyadan aan hadda idin sheega ana ku guuleystay laakiin inta aan sameynin ka hor waxaan ahaan jiray shaqo doone laakiin maanta shaqo doon mihi alxamdulillah waxaan aaminsanahay haddii maanta aan meel kasto caalamka kamid aan tago sidaastaan u tago inaan dhaqaalo sameyn karaan aaminsanahay famisa waana sameyn kartaa idinkana so please haddii aadan haysanin coach raadso maanta raadso xirfad baro maskaxdaada si qunyar u bedel habkaad u fikirtid hab kale u fikir mindsetkaada sax mentaligaada sax okay aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ugu yaraan maanta wax ka faa'iiday waxaan rajaynayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa dhigo kii waxa uu ka faa'iiday noloshiisa wax uga bedelo waxaa jiro dadka marka isoo wacaan waxay dhahaan xalo waxaas rabnaa na fahansii
إله بدتك وحفهن سيح حسا وجله قلبك قلوبت بنا آدم كإني وحن كفائديستان إله باكو سوق جليه أو رحدقه لكن قفنا ما رحدقه هذا ما تنا هل كان كهلاي أو إلهي سبحانه وتعالى أوسن كوجو قبو جنين إله سبحانه وتعالى أوسن كهاجر دقي مدة كفائده ولا كما فائديس فمسا إله وحن كبر يا وحد برتين هبا يراد ما أنت هلك أتكبرتين إنه إذن أنفعه ونلوشين واحد وبدشان